halkan waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ku FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo internetka ciwaankeegu yahay bbcsomali.com. aroorisu baridilkiin baa khayrtan dhageysatay waa 13 January saacada Afrikada barina haatan waxay tilmaamaysaa 7 Gowa wararkan idaacada subaxnimo idinku haynana waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya oo xalay khudbad u jeediyay shacabka wuxuu sheegay siyaasaddeena arrimaha dibadda waxa ku dhisnay wax wada qabsi is ixtiraam dalalka caalamka iyo ilaalinta sharafka iyo madaxbannaanida dalkeena marnaba maynan aqbalin in arrimaheena gudaha uu shisheeye soo fargeliyo madaxweyne Biden oo ra'iisul wasaaraha Itoobiya kala hadlay xaaladda dalka ka taagan iyo sidii xabad joojin loo gaari lahaa Washington oo nin Soomaali Mareykan oo magacawday inuu la taliye sare u noqdo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka culimada Wajeer oo ka dardaar warinaya astaamaha qabiilada ee dhalinta kala qaybinaya bayaan ama digniin loo dirayo qabiilaha caalamada samaystay waxay keentay in dhalinyartii wax isla baranaysay iskoolada iyo madrasooyinkii iyo meelihii waxbarashada iyo jaamacadihii ay dib ku hayso wararkii ciyaaraha inta dheer soo saaraha barnaamijku waa Cabdiqaadir Yuusuf Cali iyo Axmed Nagaashiin oo idin la socodsiinaya subax wanaagsan saaxiibayaal وتاي قدومدا soo faahfaahsanay inoo dambeeyana dhageystayaal bal marka hore warkii dunida iyo Cabdishakuur Casowe Cabdishakuur mahadsanid Axmed dhaqaatiirta qaliinka ee wadanka Mareykanka ayaa sheegay in ay markii ugu horeysay si guul ah wadna doofaar ugu talaaleen qof qaliinkan oo ka dhacay Maryland ayaa lagu fuliyay bukaan 57 jir ah wadnaha doofaarka ayaa lagu sameeyay isbeddello dhanka hidaha ah si looga hortago in jirka bani aadanka uu diido waxaa rajo laga qabaa in qaliinada noocan ah ay xal u noqdaan dhibaatooyinka ka taagan dadka xubnahooda ku deeqa ee yaraaday guud ahaan dunida madaxweynaha wadanka Nicaragua Daniel Ortega ayaa xafiiska loo dhaariyay markii afraad oo xiriir ah kadib markii uu ku guuleystay doorasho ay dad badan ku tilmaameen mid lagu shubtay inta badan hogaamiyaasha dalalka ku yaala gobolkaas ayaa ku gacan saaray inay ka qayb galaan xafladda caleemasaarka kuuriyada waqooyi ayaa lagu soo warramay inay gantaal u riday dhinaca badda wax ka yar hal isbuuc uun kadib markii xukuumadda dalkaas ay sheegtay inay tijaabisay waxay ku tilmaantay gantaal nooca ridada dheer ah mas'uuliyiinta dalka Japan ayaa sheegay in waxa ugu dambeeyay uu u muuqday gantaal nooca ridada gaaban ah madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez ayaa laga helay fayraska corona waana markii ugu horeysay ee cudurkan uu ku dhaco muddo hal sano gudaheed ah wuxuu sheegay inuu isku arkay calaamado sahlan oo kaliya uuna caafimaadkiisu hadda wanaagsan yahay Mr Lopez oo 68 jir ah ayaa horey loogu eedeeyay in uu sahashanayay khatarta cudurkan safmarka ah ugu dambeyntiina Maria Ewing oo ahayd fanaanad u dhalatay Mareykanka oo qaadi jirtay heesaha codka dheer ee loo yaqaan opera ayaa ku geeriyootay gurigeeda oo ku yaala magaalada Detroit ee gobolka Michigan waxay ahayd da'deedu 71 sano qoyskeeda ayaa ku tilmaamay inay ahayd qof hibo u leh fanka heerkii ugu sareeyayna ka gaartay caalamka wali lama shaacinin sababta ay u geeriyootay warkii caalamka waana intaas Axmed aad buu mahadsan yahay Cabdishakuur Casowe warkii subaxnimo inoo marinayay ku asahay dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka وتاي dhageystayaal aan ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa xalay khudbad u jeediyay shacabka dalkiisa khudbadaas oo ahayd mid kooban ayaa madaxweynuhu kaga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumaddiisa dhismaha ciidanka iyo shirkii wada tashiga qaran ee Muqdisho ku soo gabagaboobay iyo guud ahaanba doorashada golaha shacabka ee federaalka isagoo ugu horeyn ka hadlaya difaaca iyo dhismaha ciidanka ayaa waxa uu yiri dagaalka uu dalkeena kula jiro argagixisada waxa udub dhaxaad u ah dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo u taagan halganka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah anigoo taas ka duulaya waxaan dhexda aan u xiranay dib u dhiska ciidamadeena oo ku shaqeynaya duruufo adag oo dhan kasta ah waxaan xoog saarnay inaan diyaarino hanaanka dhismaha ciidamada qalabka sida tayeenta tababarkooda iyo casriyeenta nidaamka maaliyadeed ee ilaalinta ama lagu ilaaliyo xuquuqdooda
dadaaladaas iyo qorshayaashaas aan hirgelinay waxay horseedeen in maanta ciidamadeenna geesiyaasha ah ay awood u leeyihiin hanashada amniga dalka uuna gabagaba marayo qorshihii ay kagala wareegi lahaayeen amniga dalka ciidamada AMISOM oo u huray naftooda garab istaaga dowladnimada Soomaaliyeed isagoo ka hadlayay qaabka loo jaangooyay siyaasadda arrimaha dibadda xukuumaddiisana waxa uu yidhi siyaasadda arrimaha dibadda waxaan ku dhisnay wax wada qabsi is ixtiraam dalalka caalamka iyo ilaalinta sharafka iyo madaxbannaanida dalkeena marnaba maynan aqbalin in arrimaheena gudaha uu shisheeye soo fargeliyo anagoo ka dhowrsanay talaabo kasta oo hoos u dhigi karta ama u dhigaysa qabka iyo qaranimada Soomaaliyeed marnaba maynan aqbalin in duruufaha nagu xeeran awgood nalooga faa'iideysto oo la isku dayo in go'aamadeenna gacanteena lagala baxo siyaasadda gobonimada ah ee arrimaha dibadda ee aan qaadanay waxay horseeday in markii labaad Soomaaliya loo doorto 4 sano gudaheeda xubinimada golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay waxaa sidoo kale madaxweyne ku xigeen aanu ka noqonay golaha loo dhan yahay ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa annaga oo haatan u sharaxan xubinimada golaha amniga ee midowga Afrika oo ay doorashadiisu dhacayso dhawaan sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay u diyaar garowday musharaxnimadeeda ka mid noqoshada dalalka aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee loo yaqaan Security Council oo ay noogu dambeysay muddo 50 sano ka hor waxa kale oo sheegay in shirkii wada tashiga qaran ee Muqdisho ka dhacay ay ka soo baxeen go'aamo fiican waxaanu isagoo shirka bogaadinaya yiri waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo shirkii madasha wada tashiga maalmahan uga socday magaalada Muqdisho kaasoo ay ka soo baxday natiijo wanaagsan oo xaqiijinaysa dhamaystirka doorashooyinka dalka shirkaasi waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka jawaabaya tabashooyinkii laga qabay habsami u socodka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadihii ku gudbanaa geedi socodka doorashada warmurtiyeedka shirkan wuxuu mar kale xoojiyay heshiisyadii arrimaha doorashooyinka ay ugu muhiimsanaayeen heshiiskii jahaynta doorashooyinka ee 17 September 2021 oo ay si wadajir ah u ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka iyo shirarkii kale ee madasha ee ku aadanaa fulinta hanaanka doorashada iyo xal u helista tabashooyinkii ka soo laabtay habraacyadaas Soomaaliya maanta ma joogto xilli la isriixo la iscolaadiyo lana kala qaybsamo dhammaanteen waxaa mas'uuliyad naga saaran tahay inaan doorno sharafta iyo dowladnimada dalkeena jidka kaliya ee looga baaqsan karo caqabadaha waa in madaxda dowlad goboleedyada ay qaataan doorkooda hogaamineed ee kaga aadan fulinta iyo dhamaystirka doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee haatan socda danta gaarka ahna laga hormariyo xasiloonida iyo danta guud ee dalka madaxweyne Farmaajo khudbad u jeedinaya xalay shacabka Soomaaliya ayuu kaasi ahaa haddaba dhageystayaasha BBC-da oo aragtidooda ka dhiibtay khudbadaasi madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah dadka fariimahooga noo soo diray Sayid Cumar Cismaan Cabdille oo jooga Dhuusamareeb waxaanu leeyahay waxba soo kordhinmayso khudbadda uu madaxweynaha Soomaaliya u jeediyay shacabka sababtoo ah shacabka Soomaaliyeed uma baahna khudbad la soo duubay oo lagu baahiyo warbaahinta dawladda balse waxay u baahan yihiin shacabku in la dedejiyo doorashada dalka si jahawareerka siyaasadeed ee uu dalku ku jiro uu meesha uga baxo Cabdisalaam Joojo Galdogob jooga ayaa aragtida ka duwan qabo waxa uu leeyahay khudbadii madaxweyne Farmaajo xalay waxay ahayd khudbad ay ku dheehan tahay xilkasnimo waxayna muujisay in madaxweynuhu mar walba ogol yahay kuna gowracan yahay waxay Soomaali ogol isugu wada tahay heshiisna ay ku tahay qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da aragtidooda cabiriyay ay kuwaasi ahaayeen bal haatan wararkii caalamka ay dheegnay madaxweyne Biden ayaa telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaanu sheegay inuu walaaca uu ka qabo adeegsiga duqeynta cirka ah ee colaadda ka taagan gobolka Tigray in ka badan 50 qof ayaa warar ku tibaaxayaan in lagu dilay weerar cirka ah oo lagu qaaday Jimcihii xero ay ku jiraan dad barakacay qoraal ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay ka wada xaajoodeen sidii loo gaari lahaa xabad joojin lagu heshiiyo si loo soo afjaro colaadda sanadka iyo dheeraadka ka dhaxaloosan dawladda iyo falaagada Tigray Cabdiqaadir Yuusuf Ali ayaa warbixinta inoo haya
arrintan ayaa waxay daba socotaa warbixino sheegaya in ka badan 50 qof oo barakacyaal lagu dilay weerar xagga cirka ah oo jimcihii ka dhacay waqooyi galbeed ee Tigray. war ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu soo dhaweeyay siideynta hogaamiyaasha mucaaradka, wuxuuna ballan qaaday inuu ka taageeri doono sidii nabad loogu dhamayn lahaa dagaalka lagula jiro TPLF. xiriirka xukuumadaha Washington iyo Addis Ababa ayaa xumaaday kadib markii ay dawladdu ka carruurtay dhaleeceyn isdaba joog ah oo loo jeediyay xadgudubyadii xuquuqul insaanka ee dhacay intii uu socday dagaalka xukuumadda Abiy Ahmed ee kula jirto TPLF. xaqiiqda ah in Joe Biden iyo Abiy Ahmed ay ka wada hadleen khadka telefoonka ayaa waxaa laga yaabaa inay calaamad u tahay horumarka iyo isu soo dhawaanshaha labada dhinac. war ka soo baxay aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa wada hadallada ku aadan xabad joojin laga wada hadlo. aqalka cad ayaa sidoo kale tibaaxay in hogaamiyaashii mucaaradka ee dhawaan la sii daayay ay ahayd tallaabo wanaagsan. hase yeeshee mawduuca duqeynta ayaa mar kale walaac laga muujiyay iyadoo maalmo ka hor ay soo baxeen warar sheegaya in ka badan 50 qof oo barakacyaal ah lagu dilay weerar ka dhacay waqooyi galbeed ee gobolka colaadu daashatay ee Tigray. waxaa jiray baaqiyo caalami ah oo soo laablaabtay kuwaasi oo lagu doonayay in lagu xalliyo dagaalka sokeeye ee uu dhiiga badan ku daatay. ciidamada dawladda ayaa mucaaradka TPLF la dagaalamayay muddo sanad ah kadib dagaal ka dhacay waqooyiga dalkaasi oo ay ku dhinteen kumanaan qof. aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Yuusuf Cali warbixinta ayna la socodsiinay halka dhageystayaal wali nagala socotaana oo laanta Soomaaliga ee BBC-da. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. watahay arrimihii Mareykanka inuu wali ku jirnaa dhageystayaal madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u magacaabay nin Soomaali Mareykan oo la yiraahdo Xamse Warfa inuu wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi u noqdo la taliye sare oo arrimaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka. Xamse Warfa waxa uu hore u ahaa ku-xigeenka madaxa waaxda shaqada iyo horumarinta dhaqaalaha ee gobolka Minnesota, waxaanu dalka qaxootinimo ku tagay isagoo yar sagaashameeyadii. wariye Siyaad Saciid Saalax oo la kulmay ayaa wareysigan la yeeshay, waxaanu ugu horreyn weydiiyay bal hadda xilkan loo magacaabay inuu sharaxaad ka bixiyo. waxaa xukuumadda madaxweyne Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay magacowday la taliyaha sare wasaaradda arrimaha dibadda qaybteeda dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka. Xamse, maxay maamulka Biden kugu xusheen oo magacaaga ugala soo baxeen dadweynaha dalkan Mareykanka? walaal ma markii koowaad oo aan xiriir yeelano xukuumadda Biden markii uu tartanka siyaasadda ku jiray waxaan ahaa la taliyaha dhaqaalaha campaignkii madaxweyne Biden sanadkii 2020 bishii saddexaad laga bilaabo. marka xiriir hore toos ah ayaan la lahayn. mas'uuliyadda gobolkan ka hayo ayaa fursad siisay inaan waxyaabaha ku saabsan kobcinta dhaqaalaha iyo caqabadaha dhaqaalaha maaragtay soo food saaro qayb kamid ay tahay in xasilooni iyo nabadgelyo la helo si uu dhaqaaluhu u shaqeeyo. marka fikradihii uu badnaayay dawladdu hirgelisay sanadkii la soo dhaafay waa fikradihii aanu aasaasnay xilligu campaign-ku socday. marka taasi qayb ka tahay tan kale waxaan muddo 20 sano ka soo shaqeynayay arrinta runtii kobcinta bulshada oo meelo kala duwan aan uga soo shaqeeyay hay'adaha samafalka deeqda bixiya dawladda gobolka Minnesota oo hadda ka hayo xukuumadda gobolka Minnesota Governor Walz. waxaan ka soo shaqeeyay shirkadaha ganacsiga oo company technology ah oo hadda 52 wadan ka shaqeeya asaaskiisa aan asaasa ka ahay. marka xiriiryo badan oo saas ayaa qayb kamid ah maaragtay ayaa ku timid. Xamse, maxay tahay waxaan aad ka caawin doonto oo ah horumarinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka gudaha iyo dibadda ee madaxweyne Biden? runtii waxaynu joognaa xilli xasaasi ah. waxaynu joognaa xilli saadogtihiin markii koowaad in doorasho Mareykan ka dhacday uu madaxweyne guuleystay uu tuhun geliyo ama shaki geliyo doorashadii dhacday. waxaan ognahay caqabadan inay wadamo badan adduunka ka jiraan. marka xilkan la magacaabay waa xil adduunka oo dhan ah, Mareykanka iyo adduunka oo gobol ama deegaan gooni aan khuseenin. baahidiisuna ay tahay sidii lagu heli lahaa in wadan walba ayad quraana aynu dadkii bini'aadamka Ilaahay karaameeyay. marka karaamada waxa kamid ah inuu qofku xor u noqdo fikirkiisa, meediyadu ay xor u noqoto, qofku dooranayo dawladnimada u hayo inuu xor u yeesho. taasoo halkan ku caana maalnay baan rabnaa inay sii xoogeysato meelaha kalena la gaarsiiyo.
in Xamza magacaabidaadu waxa ay ku soo beegantay xilligan adag oo arrimaha siyaasadda iyo dimuqraadiyadda ee Soomaaliya iyo Geeska Afrika ay aad u kacsan tahay maxaa sababay ayaa la isweydiin karaa waxaan u arkaa runtii waxay ka mid tahay meelaha sida gaarka ah walaaca maaragtay xukuumadda Biden ay ka qabto waxaana runtii qorshuhu yahay sidii xasilooni dhab ah looga abuuri lahaa Geeska Afrika noqotana runtii meel istiraatiijig ay tahay nacfigeeda looga faa'iideysto dadka waddanka degan deegaamada degan ee noqdaan meel ay iyagu iska leeyihiin taladeedana ay leeyihiin laguna xoojiyo sidii dadku dareemi lahaayeen inay iyagu dowladooda ay tahay mid iyaga ka timid Xamza waxaad ka soo jeedaa gobolkan Minnesota oo ay degan yihiin Soomaali far badan oo qaxootinimo ku yimid dalkan sidaadoo kale sumcad intee leeg ayay u tahay Soomaalida Minnesota magacaabidaadan runtii dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba waxay u tahay sumcad gaar ah iyo sharaf gaar ah waxaa xusid mudan 4 sano kaliya ka hor in madaxweynihii waddanka markaa haystay intuu yimid inuu si gaara si bahdilow dadka Soomaalida maaragtay uga hadlay laga mamnuucay dadka Soomaalida qaxootiga ee Mareykanka ku yimaadaan waxa sharaf ah in maanta aan walaacaasi jirin madaxweynuhu kordhiyay tirada dadka qaxootiga lagu keenayo halkan dadka Soomaalida ana marba marka ka dambaysa miisaaniyadda ay ku yeelanayaan in miiska talada lagu gooynayo inay fariistaan marka waxaanu doonaynaa Mareykan dadkooda leeyahay Mareykan dadku isku si maaragtay dadaalna u gelinayo nacfin uga wada helayo tan kale dadka Soomaalida waxa gaar u ah meelaha ka yimaadeen inay noqoto meel degan oo dimuqraadiyad ah oo runtii dhaqaale dadku maaragtay hana qaade ay yeeshaan Mareykankuna miisaan weyn buu arinta ku leeyahay marka mas'uuliyadda saaranadaan una dadka Soomaalida Mareykanka waa inaanu taas xoojino sababtoo ah Mareykanka maanta ma aha Mareykankii hore ee naqaanay Mareykanka maanta waa Mareykan dad kala duwan ay isku dhafan yihiin taladii la wadaagayo marka runtii fikrado ka duwan oo khaas ah oo hore u arag inaan miiska soo saaro anigoo runtii deesan rajeynayo shaqadeedii gobolka Minnesota ee wasaaradda iyo xukuumaddan ka hayay ee tusaale u tahay xamse warfaa oo warramayay Siyaad Saciid Saalax ayuu kaasi ahaa balwaataan Afrika ku soo noqonay culimada magaalada Wajir Kenya ayaa baaq ka soo saaray calamada dhawaanahan ay u dhaxwadeen dhalinyarada isticmaasho baraha bulshada kuwaas oo sida ay culimadu ku sheegeen astaamo qabiil waxay arrinkaasi u arkeen inay tahay khatar ku soo korodhay Soomaalida dalkan Kenya oo kala qaybin karta qoomiyadda Soomaalida ee dalkan ku dhaqan culimadu waxay bulshada inteeda wax garadka ka codsadeen inay arrintaa wax laga qabto oo ay ka hadlaan haddaba Dr. Aadan Yunus Sheekh Ibrahim oo ah madaxa xafiiska Wajir ee golaha sare muslimiinta Kenya ayaa Cabdiraxmaan Xaaji Cadda uga warramay cabsida ay ka qabaan arrintan waa bogaadin ama bayaan ama digniin loo dirayo qabiilaha caalamada samaystay marka arrintii waxay keentay in dhalinyaro ay sameeyaan qabiil kasta ay calan u sameeyaan calaamada gacnaha lagu xirta ay u sameeyeen gabdhihii ay dhar ka dhigteen meelaha xafladaha ee calaamad lagu hagaajiyo gawaaridii lagu dhijiyay calama beeleed ama calama qabiil lagu dhijiyay arrintii iidaheed waxay keentay in dhalinyartii wax isla baranaysay iskooladii iyo madrasooyinkii iyo meelihii waxbarashada iyo jaamacadihii ay dhib ku hayso barbaartii soo kacaysay ay dhib ku hayso dhalinyartii waxay isla baran jirtay isku wadan aheed gabdhihii waxay isla baranay isku wadan ahaa isku diin ahaa isku mid ahaa shaqada isla raadsanay waxay isla cunay ayay keentay maanta in aan aragnay in ay qatar ay nagu soo food leedahay oo lagu barbaarinaa dhalinyartii soo barbaaraysay arrin ku salaysan qabiil waayahay marka ayaad u jeediseen bayaanka waxaan u jeedinay barbaarta soo kacaysa mas'uuliyiinta odayaalka haweenka gabdhaha cid kasta oo gobolka waqooyi bari degan oo Kenya ku nool ama Nairobi ku nool in laga digtoonaada arrimaha dhibku keenaya oo qabiilnimada ku salaysan maxay dadkii waa muslimiin diintina qabiilnimada way ka digtay waddankiina qabiilnimo ma aha waddan lagu wada nool yahay arrimahaas marka waxay keenaysaa in ay muslimiinta qaybsamaan quwadoodii iyo xoogoodii iyo midnimadoodina daciif ay noqoto siyaasiyiintii ay kala jabaan mustaqbalkii madaxdii mustaqbalka soo barbaaraysay ay kala jabaan waayahay marka baaqiinu marka inuu hirgalayo rajo intee leeg ayaad ka qabtaan maadaama waxa kan wax oo cuqaladii iyo odayaashii iyo culimaa u diinka ay wadanin waxaan aad ugu rajo weynahay in barbaartaas hadda soo kacaysa ay arrimahaas ka digtoonaadaan
rajo weynaa nagu jirto in odayaasha iyo culamaa udiinka iyo siyaasiyiinta iyo dadka professionalka oo wax bartay iyo bicmushtarkaba aan garab ka helna ayaan rajaynaynaa. rajo weynaa nagu jirto in laga digtoonaado arrintaas oo lagu kaco arrimaha noocaani oo kale sheekh markii ay dhacaan waxay u baahan tahay in dawladda hadba bulshadu ay hoos tagayso in lala kaashado. marka laamaha dawliga ma la kaashateen marka arrintani? ma doonayno shacabka iyo dawladda inaan isku dirno, ma doonayno. annaga hadda waxa kan waa nasiixa inaga tahay. nasiixadana way qaataan, waana ku kalsoonahay dhalinyarta iyo gabdhaha. dhanka dawladda waxaa nooga daran barbaarta hadda soo kici oo iskiga hor imaadi karta birita qabiilnimo. heer waxay gaartay wiilka uu jajan gacanta ku xirto, gabadha ay jajan gacan ku xirto, oo qofka uu ka hor imaado jidka ama hoteelka kula fadhiya aad fahmi karaysa qabiilka uu yahay. arrintaa iyada oo barbaarta ay kala tegi, barbaarta ay isku xumaanay, dhalinyarta soo kaca iyo gabdhaha soo kaca ay ku beermaysa qabiilnimada ayaa nooga daran midda dawladda. maxaa yeelay arrintaas iyada haddii dhalinyarta iyo caruurta ay midoobaan, dawladdana waxba ma dhahaysa. marka waxaan u nasiixa u jeedinaynaa community-ga, nasiixa u jeedinaynaa. waan gartay. marka arrintan aad sheegteen inay khatar badan marka bulshadu ay ku keeni karto amaba qabyaaladu ay kor u sii qaadi karto, asal ahaan marka maxaa keenay, halkayna ka timid ayaad isleedihiin? runtii ma rabna in aan soomaalida qaar aan tuhunno, ma rabno. muhiim maaha meeshay ka imaatay, laakiin waxa aan tuhunsannahay oo ugu weyn waxa weeye waa social media. social media dadweynaha saad la socoto maanta adduunyadii oo dhammaala waxay noqotay hal magaalo ay noqotay. wixii Mareykanka lagu sameeyay, Muqdisho lagu sameeyay, Djibouti lagu sameeyay, Jarmalka lagu sameeyay, Sacuudiga lagu sameeyay, adoo tuulo yar joogaas daawan karaysaa. marka arrintan meesha ugu weyn oo hadda abaarayna oo inooga imaaday waa social media. social media marka hadday ayaga nala dagaalayaan, annagana waa inaan adeegsanaa social media oo community-ga ama Soomaalida aan ugu digno. maxay arrintaas waxay khatar ku tahay Soomaalida midnimadeedii Kenya degaysay, waxay khatar ku tahay siyaasiyiintooda midowgoodii, tacliinta midowgoodii. marka sidaad og tahayna walaal, diinta islaamka waxaa jirta waxa la yidhahda fiqhul aqaliyaad. dadka laga tiri badan yahay say ula noolaan karaan dadka ka tiri badan ayaga. marka maadaama Soomaali aan nahnay nagala tiri badan yahay, waa inaan fursad siinin nagula arka, noola soo jeedo, ama arrimaheena iyo ceebaheena hoose nagula arko, ama inaan wadani ahayn noola fahmo. waa inaan dadka naga tiri badan aan isku soo jeedinin oo fahansiinin waxaan nahnay. marka maslaxadeena adduunyo iyo maslaxadeena aakhiraba kuma jirto waqtiga xaadirka oon joogno in aan tusno in Soomaalida ay calamo qabiil leeyihiin. Dr. Aadan Yunus Sheekh Ibraahim oo uu warramay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayuu kaasi halka dhageystayaal wali nagala socotaana waa BBC. barnaamijka ciyaaraha tabinta tooska ee Sabtida waxaynu idinkugu soo gudbinaynaa ciyaarta dhaaftay. kulanka la isku fardacaynsaday waa kulanka garoonka Itixaad Stadium. kooxda Manchester City ay ku soo dhaweynayso kooxda Chelsea. Man City oo horyaalka daafacanaysa, hogaaminta horyaalka la haysa, ma awooda inay ka badbaado guul darro ay kala kulantay Chelsea. Chelsea awood iyo taalmo u haysa inay ka argudato Man City oo September gurigeeda kaga soo badisay. nagu soo biir tabinta tooska oo soo gali doonta 3 galabnimo saacadda bariga Afrika oo u dhiganta 12 duhurnimo waqtiga London. tabinta tooska BBC. waa tahay dhageystayaal bal haatan Hindiya. gobolka ugu dadka badan dalka India Uttar Pradesh ayaa oo la sheego in dadka ku nool ay ka badan yihiin xataa dadka ku nool dalka Ruushka oo dhan ayaa doorasho ay dhawaan ka dhici doonta. hase yeeshee arrinta la yaab kale waxa weeye in ololaha doorashadaasi ay xag hore kaga jirto sida wax looga qabanayo loodaan cid lahayn ee gobolkaasi iska dhex gaafureegta ee beeraleyda dalagoodii ka baabiisay iyo dhibaatooyinka kale ay ku hayaanba. warbixin ay Nitin Sharifaska nooga soo dirtay baadiyaha gobolkaasi Uttar Pradesh waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Cali Dhimbil. Mirmala waxay tustay goobtii saygeedu ku dhintay bilooyin ka hor. mid ka mid ah dibida dabjoogta ee magaalada Meereysata kuwaas oo aanay cillihi jirin ayaa waxa uu la dhacay geesihiisa meel dibadda ka gurigooda, halkaas oo uu ku dhintay ninkan oo ahaa da'aada 54 jir. Mirmala taniyeentii uu dhintay saygeedu ma ay soo dhexgali jirin dadka, waxaana ay ku jirtay xaalad qaracana oo ay ka qaaday geeridii naxdinta lahayd ee ku timi
ninkeedii sidii uu saygeedu u dhintayna waxaa nooga sheekaysay gabadhan oo ah mirmaala dumaashadeed wejiga ayuu ka burburay waxaa sidoo kale dhaawaca ka soo gaaray mindhicirada iyo xabadka wuxuuna geeriyooday intii isbitaalka aan la gaarsiin waxay ahayd geeri aad u xanuun badan dadka hindida intooda badan waxay xushmad iyo qadarin u hayaan looda sanadkii 2017 waxaa xukunka mar kale qabsaday xisbiga BJP waxaana xisbigan uu taageero weyn ka helay dadka hinduuga gaar ahaan dadka ku nool gobolka Uttar Pradesh Yogi Adityanath waa barasaabka gobolka Uttar Pradesh waxa uu wacad ku maray in ciqaab adag la marin doono qof kasta oo waxyeello u geysta loodan waxaan marka ugu horreysaan mamnuuci doonaa in si sharci darro ah lo'da loo qalo guud ahaan gobolka qof kasta oo lagu helo isagoo waxyeello u geysanaya lo'da waxa uu ku dambayn doonaa xabsiga dalka Hindiya waxaa ku nool in ka badan 200 oo milyan oo lo ah tiradaas oo aan lagu darin in ka badan 5 milyan oo neef oo suuqyada wareega isla markaana aanay jirin cid lahi tirada shacabka dalka Hindiya ee sare u sii kacaysa ayaa waxaa qaar badan oo dadka ka mid ahi aysan ku faraxsanayn dhibaatada ay geysato loodan baahan ee aanay jirin cid daryeeshay Bhupender Dube si la mid ah dad badan waxa uu shaqadiisa ku waayay fayraska corona isla markaana waxa uu dib ugu soo laabtay gurigiisii oo ku yaalay tuuladii uu deganaan jiray Dube waxaa soo weeraray isla markaana dilay mid ka mid ah loodan suuq joogta isagoo markii dambena u dhintay dhaawicii soo gaadhay sida ay noo sheegtay xaaskiisu waxa uu aaday bannaanka si uu nacnac ugu soo iibiyo wiilkeenna balse dib uma soo laaban canugayga hadda waa agoon waxaa meel walba wareega lo'da aysan jirin cid iskale yaa iminkana caawinaya gobolkan Uttar Pradesh qofkii waxyeello u geysta looda waxa uu mutaysan karaa xadhig gaadhsiisan ilaa 10 sano dawladda Hindiya ayaa sheegtay inay dhistay in ka badan 5,000 oo goobood oo loogu talagalay loodan aan cid iska lahayn in lagu xanaaneeyo balse qaar ka mid ah dadka ku hawlan xarumaha lagu xanaaneeyo loodan waxay sheegayaan in goobahan ay dawladdu dhistay aysan ku filayn tirada badan ee looda ah ee suuq joogta ah There are 200 cows in this cow shelter. waxaa goobtan looda lagu xanaaneeyo ku jira 200 oo neef taasi oo ah tirada loogu talagalay halkan mana ahan mid dabooli karta baahida sababtoo ah ku dhawaad 700 oo neef oo lo ah oo aysan cidi lahayn ayaa suuqyada wareega qaar ka mid ah qoysaska gobolkan ma aha kuwa walaac ka qaba doorashada soo socota balse waxa ay danaynayaan in xal loo helo dhibaatada ay ku hayso loodan suuqyada joogta ee cidlihii aanay jirin aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan cali dhimbiil oo warbixintaasi inala socodsiinaya wararkii ciyaaraha haddii aynu ku door korona waxaa ka mid ah in kabtanka xulka dalka Burkina Faso oo 2-1 ay kaga badiyeen dalka martigelinaya tartanka qaramada Afrika ee Cameroon uu sheegay in markii hore iyagu ku gacan sareeyeen ciyaarta oo ay hogaaminayeen hase yeeshee farsamo xumo ka timid dhankoodu ay keentay in markii dambe laga gacan sareeyo oo sidaasna ciyaartii lagaga badiyo ciyaaraha kale maanta dhici doonana waxaa ka mid ah Algeria Sierra Leone oo guuleystay doona Nigeria iyo dalka Masarna waa balansayihiin Sudan iyo Guinea Bissau ayaa iyaguna wada ciyaari doona guud ahaan idaacadii subaxnimo intaas ay naga dhantahay sidaas iyo nabadgelyo